qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee gobolka Sool kulan ay maanta ku yeesheen hotel Casuura ee magaalada Laascaanood waxay muujiyeen taageero ay u hayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo maalmo ka hor socdaal ku yimi isaga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo magaalada Laascaanood Ibaatika Laascaanood iyo erga nabadeed oo uu diray deegaanada Gocondhaale iyo Ceegaag oo shaqaaqa halkaasi ka soo cusboonaatay ayay dhalinyaradaasi sheegeen in ay aad uga mahad celinayaan wasiirka shaqooyinka uu muddooyinkii ugu dambeeyay ka hayay Soomaaliland dhalinyarada aqoon-yahanada ayaa tilmaamay inay ku qanacsan yihiin siyaasadda wasiir Faratoon halkan maanta kulan ballaaran iskugu yimid dhalinyarada gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle oo taageero weyn u muujiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon runtii waxaan aad iyo aad kaysduwaan oo hambalyeynaya shaqadii adkeedu wasiirku ka qabtay gobolka Sool iyo Sanaag iyo sidoo kale Buuhoodle qofka miisaankiisa waxa lagu gartaa horta marka uu horeysa soo dhaweyntiisa iyo shacabka wixii ka dhacay weyn ogeyn soo dhaweyntii ballaarneed wasiirka lagu sameeyay ilaa iyo Laascaanood ilaa inta laga soo gaaray magaalada Og ilaa Caynaba runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa shacabkii qaybta weyn ka qaatay soo dhaweyntaasi marka inta laga yimaado miisaanka qofku leeyahay soo dhaweynta baa laga gartaa marka horeysa marka labaad shaqada adkeyd uu ka qabtay wasiirku halkan ay ugu horeysay kulamadu la qaatay odayaasha iyo waxgaradka iyo simada goboladan oo maalinta dhan uu kula jiray halkan taas aad baan u bogaadinaynaa qodobadii ka soo baxayna waxaan filayaa in ugu horeynba maalinta ku xigtay laga arkay odayaasha nabadeynta ee gobolka Buuhoodle shaqaaqadii ka jirtay gobolkaasi Buuhoodle gaar ahaan deegaanka Gocondhaale iyo degmada Ceegaag ee ka tirsan gobolka Saraar halkaas oo shaqaaqadii ay ku jiraan odayaashii wasiirku u diray isaguna hawl degdeg ah oo ku timi iyo shaqadii qaranka uu hayay arrimaha dibadda oo ka soo dhex gashay mooyee isna qayb uu ka ahaan lahaa runtii dhalinyaradan intaas ay daarnaa kulankoodu waxaanu taageernaa oo sumug iyo miisaan la u taageernaa wasiirka waqtiga faraha badan haddii aanu baahantaa gobolka Sool ku noolahay aanu ku luminay inuu kursigaas xukuumadda Soomaaliland noo joogo sifooyinkii aan ugu idmanayna uu gacanta kula jiro hadda noona caddahay baad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan u hambalyeynaa inta afkooda aan ku hadalnay inta naga maqan na waa nala cod fikirkani mid ma aha aniga iyo inta halka joogta ku kooban ma aha fikirkani runaantii waa mid saameeyay gobolka Sool dhamaantii waa mid saameeyay ilmaha yar ee maanta jooga gobolka asartan deegaanka uu ka soo jeedo isagu Sool Sanaag iyo Cayn uu ka soo jeedo waxaad moodaa in xukuumadda Soomaaliland ay waqti fara badan ku lumisay in wasiiraygu ay iska soo doortaan ay keenaan laakiin kali waa wasiir kaliya aan hadana beelahaan ah aan ku keensanay waxaan ku keensanayna waxay ka mid tahay waxyaabaha wada gacanta kula jiro aan halkan shirkan isugu nimi hadaan nahay dhalinyarada gobolka Sool iyo dhalinyarada gobolka Buuhoodle hadaan nahay bahda dhalinyarada sida idin muuqata waxaan taageero buuxda u haynaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon isaga mutaystay inaan taageerno iskamaanu taageerin waa dareemi karayeen imaashihii maalinkii dhaweyd uu yimi wasiirku gobolka Sool waana laga dareemayay dhaqdhaqaaqiisii iyo imaashihiisii iyo hawlihii uu ka qabtay gobolka waynu ka dareemi karaynay haddaan ka hadlo gaar ahaan dhalinyarada Buuhoodle anigu ka mid talaya halkan kulay taageero buuxda oo si gaar ah ayaan u haynaa waxayna tahay waxaan dareeminay oo u dambeysay maalinkii dhaweyd uu wasiirku tagayay inuu wafdi qabtay wafdidaas oo u diray gobolka Buuhoodle arrimaha nabadeynta deegaanada Buuhoodle hoos yimaada shaqaaqadii ka dhacday waa wasiir xukumi kara saddexda gobolba baan oran karaa waa wasiir xukumi kara waana wasiirkii wasiirada baan oran karnaa saddexda gobol ee Soomaaliland ee gulbahaanta deegu anaga wasiirkaygu noo yimi la xisaabtan baa la sameynay dhalinyartu la kulmay odayaashu la kulmay waa la xisaabtanay wasiirku wuxuu noo cadeeyay inuu shaqo dadka deegaanka u maqan yahay waana wax muuqda maanta wada arkaysiin madaxweynaha Soomaaliland guddigii matelisay dadku waa beelo Soomaaliland waa beelo harti ninkii matelayay Faratoon buu ka dhigay halkaas muuqata qaamkiisa iyo halka ka joogo harti iyo Soomaaliland muhiimadda anaga waan halkan u fadhinaa wax kale ma aha haddana dhalinyarada reer Sool inaan wasiirkayga ku taageerno waxa weeyaan shaqada uu hayo ta deegaanka iyo ta kale waxaan soo dhaweynaynaa imaashihii uu gobolka yimi
oo deegaankiisa iyo gobolkiisa iyo bulshada iyo aqoon-yahanada iyo haweenkiiyo u kurgalay juhdina geliyey. waxaa ka muuqatay soo dhoweyntiisii in deegaankiisa iyo gobolkiisa iyo bulshadiisu aad u jecel yihiin. waxaan kaloo soo dhoweynaynaa ka qaybgalka uu ka qaybgalay wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland. qofku dadku waxay wax ku noqdaan waa midaysnaan dan guudna waxa lagu raadin karaa in la midaysan yahay waa wasiirka kaliya ee gobolkiisa iyo dhalinyaradiisa iyo dadkiisa iyo aqoon-yahankiisa garab walba dhinac walba ku qaabilay si wanaagsan loo soo dhaweeyay waxyaalo badan boona hadeer lagala hadlay oo gobolka ka jira waxyaalahana baahidahana inuu wax badan ka qabanaya buu sheegay. hambaliyo iyo bogaadin uga diraynaa safarkii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane yaasiin xaaji maxamuud faratoon socdaalkii uu ku yimi gobolka sool ee milgaha iyo miisaanka lahaa. waxaan kaloo ku sii bogaadinaynaa arrintii shaqaaqadii ka dhacday qaybtii libaax lahayd oo ka qaatay taasoo ahayd wafdi heer caalamiya oo uu diray meeshii dhibaatadu ka dhacday. marka aad baan u hambaleynaynaa wasiirka. tan kalena waxaan halkan baaq ka dilayaa beeraha walaalaha isku lahayay horfadhi iyo aaga kulmay waa wasiirka kaliya ee muujiyay dadkan inuu wasiir u yahay. waxaan oran karnaa waa wasiirka guud ee Somaliland gaar ahaan wasiirka gobolada bariga Somaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uga mahad celinayna sida wanaagsan qiimaha sharafta iyo aqliga ku jira oo u soo xulay maalintii uu magacaabayay wasiir Yaasiin Xaaji Xiir Maxamuud Faratoon. waqtigan hadeer la keenay ee ah wasiirkan wasaaradda in indhihii caalam ay soo qabteen magaalada Hargeysa caasimadda oo wax badan uu furfuray. wasiirka waxaan leenahay wasiir waan ku taageersanahay mar labaad iyo mar saddexaad waan ku soo dhaweynaynaa. waxaan halkan anagoo dhalinyarada gobolka Sool ah oo dhammaystiran aanu taageero mug iyo miisaan u muujinaynaa wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir oo magaalada loogu soo dhaweeyay maalintii dhaweyd si maqaam sare oo heer caalami ah dadka oo dhame ay u khushuuceen kana hortageen magaalada banaankeeda ay wasiirka ku dhiirigelinayna inaanu anagoo dhalinyaradii gobolka oo dhammaystiran aanu garabkiisa taaganahay oo taageero u muujinayna hawlaha uu qabanayo ee bulshada wax badan ka anfici doona aanu nahay kuwa ku taageeraya dhankayagana wixii magaranaysaa uu nooga baahdo waxaan leenahay wasiirkan aad iyo aad baan u taageeraynaa. weliba daannagu qodobkan ku taageernay waxaa weeye su dadkiisa ugu xidhan yahay saasaanu ku taageernay. isagaana matala isagaana hormuun doo ah shaabuu hoodle uu ka geystay iyo isagoonu annagoo dhalinyar ahaan magac kasta iyo cid kasta iyo maamuus aan ku hadlayno aad baan u soo dhaweynaynaa. tan labaad maanta waxa meesha isugu wada yimi oonu aanu yimi looma kala hadhin xergaabo laascaanood buu hoodle dhalinyarteedii meesha waa ku dhantay. horta aniga qodobkaas ay keena waa mide ta kale markaan ka soo gudbo hambalyeyntii iyo soo dhaweyntii wasiirka iyo arrintii ceegaaga shaqaaqada ahayd oo u saaray guddi waxaa kale sii raaca qodob saddexaad qodobkaas wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland oo wasiirku macnaha deegaan ahaan harti marka laga tago SSC micna ilaa baran ilaa warsangeli ilaa micnaha rahantii arrintaas madaxweynaha